السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسون عود wanaagsan asaabta qiimaha qaaya badan waxaan sameynanaa barashada batanbiga qaybta kuwiiska argumenta 24aad qaybtiisa labaad. Sidoo ogtiin hore waxaan soo sameynay dhammaan argumentaashka hoose kan 24aad laga soo bilaabo kan koobaad ilaa kan 23aad qaybood faahfaahintii qaybooda kuwiis. Argumenta kasta su'aalihiisa isku aadan af Soomaali ku fasalan waxaad ka daawan kartiin YouTube-ka qaybta playlist insha Allah. Okay? sidoo kale YouTube-kan waxaad ka daawan kartiin barashada luqadda af Jarmalka, af Ingiriiska, af Talyaaniga wixii kale oo lamid ah. Argumentan waxaan uga hadlaynaa limitazione dei consumi carburante, sida loo yareyn lahaa isticmaalka faraha badan oo shidaalka iyo sida macnaha loo ilaalin lahaa deegaanka wasakhda ka imaanaysa gaariga. Okay? Il rumore prodotto dai veicoli a motore è causato solo dal motore. Il rumore guuxa badan ama dhawaaqa badan prodotto dai veicoli gaariga ka dhalanaya a motore è causato waxaa sababaya yiri solo dal motore, motorka kaliya sababaya in macnaha gaariga dhawaaq yeesho. Falso way perché la marmita haddii fariinku uu halaysan yahay haddii macnaha waxyaabo non solo al motore. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è maggiore se il fumo di scarico presente colore scuro. Esatto. L'inquinamento wasakhda dell'aria oo arida dei veicoli gawaarida è maggiore waa mid aad u sareeya ama aad u fara badan se haddii il fumo qaacu yiri di scarico oo gaariga markaa gaariga wadaysid dabada dambishada waxaa ka imaanaya qaac soma qaacas haddii uu yahay u dhahay mid aad u madow. Esatto. L'abbandono di una batteria per auto sulla strada o sul terreno può arrecare gravi danni all'ambiente e alla falde acquifera sottostante. Esatto. L'abbandono marka aan ugu dhaqaaqno mise aan ugu tagno una batteria per auto oo gaari sulla strada wadada yani batteriga naga halaabay mid cusub kala meesha aan wadanaan ku xiranay kii hor meesha ugu tagnay camal. Okay? Batteriga ashita ku jirto hadaa dhulka ugu tagno ama wadada waxay dhalinaysaa graavi khatar all'ambiente deegaan ahaan ala falda iyo caleemaha geedaha iyo waxyaabo noocaas dhibaato u geysanaysa sottostante. Esatto. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli aumenta se gli iniettori sono difettosi. L'inquinamento wasakhda dell'aria prodotta oo soo saaraya dai veicoli gawaarida aumenta wuxuu ahaanayaa mid kordhaya se haddii gli iniettoriyaasha sono difettosi. Iniettoriyaasha waxaa la kuwa shidaalka meesha ku rida miya oo dabkana kiciya. Vero? I veicoli che rispettano la normativa anti-inquinamento Euro 4 emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli omologati secondo la normativa Euro 0. No, falsissimo è. I veicoli gawaarida che rispettano kuwaas oo ilaalinaya la normativa qawaaniinta anti-inquinamento oo macnaha anti-inquinamento waxaa la dhahaa wasakhda macnaha sida looga hortagi lahaa ilaalinaya Euro 4 emettono waxay keenayaan una quantità di gas shidaal inquinante oo wasakhdiisa ay badan tahay maggiore di quelle omologate. Falsissimo, non ci andrà. L'uso del climatizzatore comporta minor consumo di carburante. L'uso استعمالك del climatizzatore waxaa la qaboojiyaa no comporta wuxuu sababayaa minor consumo inaan isticmaalno wax yar di carburante yani inaan shidaal yar isticmaalno ayuu sabab u noqonayaa hadaa qaboojiyaha daaran camal mukayfka. Falsissimo. Okay? Per evitare rumori fastidiosi durante la guida occorre fare controllare che il dispositivo silenziatore no? Marmita sia in buona condizione di efficienza. Esatto. Per evitare si looga fogaado rumori guuxa ama dhawaaq badan oo gaariga fastidiosi oo aan dhibsanayno durante la guida inta gaariga aan wadno occorre waxay ahaanaysaa far controllare inaan controlno il dispositivo waxyaabaha silenziatore oo macnaha dhawaaq yareynaya tusaale sida marmitada oo kale sia in buona condizione in macnaha xaaladeeda meel fiican ay marayso aysan jabin aysan madoobaanin aysan ciladaysan wax noocaas. Vero? I rimorchi vuoti che spalzano eccessivamente possono essere causa di rumore. Esatto. I rimorchiyaasha uu yiri ama isjiidka vuoti oo faaruqa
che sbalzano kuwaasoo boodboodaya eccessivamente si aan kala joogsi lahayn possono essere waxay ahaan karaan causa inay sababaan di rumore. Esatto. Soomaali markaa joogto gaari isjiid oo faaraq oo dad markuu maray go waa maqashaa sooma. Esatto, la risposta è l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi. Esatto. L'inquinamento wasaqda oo ka imaanayso dell'aria prodotta dai veicoli gawaarida può causarne waxay sababi kartaa danni dhibaato khatar alla via respiratoria yani naqaska inay dhibaato u geystaa laga yaabaa. Qaac madow hadda adoo gaari halaysano ama shidaal xun ku shubta ama wax ka hadda gadaashiisa igu sheelaraysa qaacas madow wajiga ama indhaha iga gala ama afka naqaska ay dhibayso. Nei veicoli dotati di marmita catalitica l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la temperatura è ancora bassa. Falsissimo. Okay. Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante. Trainare marka aan jiidayno un rimorchio isjiid ama rimorchi non comporta ma dhalinaya ama ma sababaya un aumento in uu kordho dei consumi di carburante isticmaalka shidaalka. Yani gaari kaligiis hadaa wadid iyo rimor hadaa jiidayso, rimorka markaa jiidaysaa shidaal badan qaadana waayo rimorkaas jiidaysa gaariga waa inuu motorka awood u sheegtaa, motorkaas awoodiisana shidaalka ay ku xirantahay. Quindi non comporta falso. Ok. Diminuendo opportunamente la velocità diminuisce il consumo di carburante. Diminuendo marka aan yarayno opportunamente si wanaagsan la velocità speedka diminuisce waxayna speedka diminuisce sidoo kale waxay yaraynaysaa haddii macnaha speed yaraan isticmaalo il consumo di carburante shidaalka badan. Va bene, vero secondo me. Per evitare rumori fastidiosi durante la guida si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza strada, trasporto feriti o malati, pericolo immediato. Esatto. Per evitare si anziché ilaalina mise aan uga fogaano rumori qaylada badan oo gaariga durante la guida inta aan wado saaranay si deve usare waa inaan isticmaalna ama la isticmaala il clacson honka beep solamente kaliya per motivi di sicurezza marka ay jirto xaalad amni darro ama xaalad amni si macnaha haddii qof hoosta naga soo galo strada, trasporto feriti ama markaan qof dhaawac wadno oo malaati ama qof xanuunsan, pericolo immediato. Esatto. Gli apparecchi e dispositivi che funzionano corrente elettrica, radio, luci, lunotto, termico, eccetera, eccetera, fanno aumentare i consumi di carburante del veicolo. Va bene, vero? Gli apparecchi waxyaabaha uu yidhi i dispositivi che funzionano oo ku shaqaynaya corrente korontada sida batteriga marka lagu xirinayo electric sida radio oo kale, luushanalka oo kale, lunottiga oo kale. Lunottada macnaha waa la kuleeyaa sooma, termico iyo eccetera eccetera iyo wixii lamid ah. Fanna waxay sameynayaan aumentare in ay kordhiyaan i consumi di carburante. Esatto. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si circola sempre con marcia bassa. Falso. Per diminuire il rumore prodotto dai veicoli a motore è necessario far controllare i freni. Se emettono rumore durante la frenata sostituendola se necessario. Esatto. Per diminuire si aan u yarayno il rumore dhawaaqa badan prodotto dai veicoli gaari ka imaanaya motore è necessario waa lama huraan ama lagama maarmaan far controllare inaan controlno i freni fariinka gaariga. Se emettono haddii ay dhalinayaan rumore dhawaaq marka durante la frenata yani gaariga qaar marka fariin qabatid qiiq dhahayo kale waa inaan control ku sameynaa sostituendoli anagoo bedelayno se necessario haddii ay tahay lagama maarmaan. Esatto. Adottando una stile di guida che limita consumi di carburante è possibile ridurre l'inquinamento dell'aria. Adottando marka aan la qabsano una stile di guida style macnaha gaari wadow styleka ugu wanaagsan camal ki limita kaasoo yaraynayo
iyo consumi di carburante isticmaalka badan oo faraha shidaalka è possibile waxaa macquula uu yiri ridurre inuu yareeyo sidoo kale l'inquinamento dell'aria wasaqda. Esatto, una cazzata vedrò la risposta è così. Mantenendo il più possibile costante la velocità si riduce il consumo di carburante. Mantenendo marka aan ku hayno yiri il più possibile costante sida ugu wanaagsan la velocità speedka sare inaan ku hayno yani gaari speed sare inaan ku wadno. Riduce wuxuu yareynayaa il consumo di carburante isticmaalka shidaalka badan yani gaariga markaa autostrada saaran tahay iyo markaa buuraley maraysa isku mid ma autostrada markaa saaran tahay gaariga mar hadaa sheelareyso kululaada inta kale shidaal badan ma qaadanayo asaa is wadaa inuu diyaarad markay kacdo kale guux badan mal maqlayso ja wada fiican ay saaran tahay marka vero. Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenziatore marmita. يعني rumoorka ama qaylada ka imaanaysa gaariga waa uu kordhayaa tartiib tartiib haddii macnaha marmitada ay jabto. Esatto, vero. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo. Esatto, haddii macnaha culeyska faraha badan oo gaariga aan saarayna aan ka yarayno shidaal badan ma qaadanayo camal. Esatto, gaari macnaha 200 jawaan ay saaran yihiin gaari faaruq asku shidaal miamay. I veicoli ibridi con due motori a scoppio ed elettrico inquinano di più perché azionano da due motori, no? Ibridi iyo waxaa la dhahaa inquinante motore telescopio yani gawaarida qaar laba motor ay leeyihiin midna shidaal ku shaqeeya midna wuxuu ku shaqeeyaa koronto marka wasaq badan ay dhalinayaan camal u dhahay. No, falso. L'inquinamento dell'aria può essere ridotto controllando che il veicolo sia sempre nella condizioni ottimali di consumi e rendimento. Esatto, la risposta. Per diminuire l'inquinamento dell'aria non bisogna accelerare e frenare spesso durante la marcia del veicolo. Esatto. Per diminuire siano u yareyno l'inquinamento wasaqda ama qaaca ka imaanaya gaariga dell'aria prodotto non bisogna looma baahno accelerare inaan said u sheelareynin markasta kadibna aan fariin qabno spesso durante la marcia inta wadada saarna yani wada mar haddaa saaran tahay speed kugu wanaagsan ku soco laakiin gaarigii oo xoog u socda inaa fariin qabatid haddana markuu qaboobo kale haddana xoog u sheelareysid looma baahna camal vero. Okay? Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna controllare spesso gli organi di sospensione ammortizzatori. Organi di sospensione ammortizzatori? No, non c'entra niente ammortizzatore con me. L'inquinamento acustico aumenta se si usano in modo eccessivo i dispositivi di segnalazione acustica e clacson trombe. Esatto. Per limitare i consumi di carburante conviene chiudere i finestrini se si viaggia velocità medio alte perché la turbolenza all'interno dell'abitacolo possano frenare la marcia del veicolo. Vero. Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve sostituire il tubo di scarico usandone uno di diametrico più piccolo. Falso, non c'entra niente. Diametrico più piccolo sono. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai gas di scarico del veicolo bisogna sostituire periodicamente il filtro antibollin io maxaaska kale io dhawaaq. No? L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione. Falsissimo. Haddaba macnaha gaariga sheelareysido frizione hoos dhigaysid inquinamento yareynaya. Falso. Ultima domanda. È vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito no? Di raffreddamento del veicolo poiché potrebbe non essere biodegradabile
biodegradabile. Esatto, la risposta però. Asxaabta qiimaha qaaya badan cashirkana saas ayaan ku dhamaynay. Waa argumenta 24aad qeybtiisa labaad ee qeybta quiz-ka. Insha Allah hadda waxaan fiirinaynaa natiijada inta aan qaladnay iyo inta aan saxnay. Okay, maasha Allah. Asxaabta qiimaha qaaya badan sidani muuqataba cashirkana saas ayaan ku dhamaynay. argumenta 24aad qeybtiisa labaad qeybta quiz-ka. Insha Allah billahi karim waxaan filayaa ama aan rajaynayaa idinkana sidaas oo kale inaa u samayn doontiin. guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.